wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga Jubbaland Mudane Axmed Xasan Cumar ayaa booqasho ku tagay xarunta hay'adda tayadhowrka Jubbaland. Wasiirka ayaa waxaa goobta ku soo dhaweeyay gudoomiyaha hay'adda tayadhowrka Jubbaland Mudane Maxamed Axmed Nuur iyo howlwadeennada hay'adda tayadhowrka Jubbaland, waxaana intii uu kormeerka ku jiray uu indhayn ku sameeyay habsami u socodka shaqada ay u hayaan bulshada reer Jubbaland. Ugu horeyn, gudoomiyaha hay'adda tayadhowrka Jubbaland Mudane Maxamed Axmed Nuur ayaa wasiirka uga mahadceliyay booqashada uu ku yimid xarunta hay'adda tayadhowrka Jubbaland, sidoo kalena warbixin ka siiyay qaabka ay u shaqeynayaan. wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ayaa maanta na soo booqday oo rugta quality control ama tayadhowrka ee xarunta weyn ee laabka ku yaalo ayuu maanta na soo booqday. runtii warbixin oo kooban aan ka siinay laabka iyo qaabku wax u qabto shaqada. runtii waxaanu leenahay wasiir kow iyo laba ayayna ku noqonin intaad noo imanayso. mar walba waxaanu jecelnahay wasaaradaha shanta ah in la shaqeyno. 4 wasaaradood oo ka mida maalin dhowr jeer bay noo yimaadeen. wasiirkan baan weli aan imanin xarunta weyn. 5 wasaaradood ee shaqadu naga wada dhaxayso inay noo yimaadaan oo ayna kormeeraan oo qaabka shaqada aan wanaajino waa arrin fiican. dhanka kale, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga Jubbaland Mudane Axmed Xasan Cumar ayaa ku amaanay hay'adda tayadhowrka Jubbaland hawsha mugga leh ee ay u hayaan bulshada reer Jubbaland. waxaan fursad u helay inaan booqasho ku yimaado xarunta dhexe ee hay'adda tayadhowrka Jubbaland loo yaqaan Jubbaland Quality Control Service, adeegga tayadhowrka Jubbaland. waa kaga mahadcelinayaa agaasime. waxaan halkaan kula kulmay agaasimaha guud iyo shaqaalaha hay'adda. shaqaale aad u caaboon ah oo waan ku faraxsanahay. waxaanan intaan booqashada ku guda jiray soo marnay qaybaha kala duwan ee shaybaarka, qaybta cunooyinka, qaybta kiimikada iyo lagu baaro. waxaan runtii oran karaa meel aad iyo aad shaqo la geliyey, xirfad iyo shaqo ay ka muuqato inaan imid. dabcan hay-addu wada shaqeyn waa leenahay, laakiin maanta xafiiskii ugu horreysay inaan imaado. iyadoo dee raashin gubaysa hay-addu maalin walba la arkaa iyo dawooyin dhacay. runtii waxaan isleeyahay waa hay-adda keliya ummaddan nafteeda inay badbaadiso oo cunooyinka iyo sumaynta inta badan dalalku dowladahoodu tabcaanka yihiin ku dhacda si ay ummadda uga badbaadaan u taagan. waana shaqo aad aan u bogaadinayo. markaan eego sectorka kalluumaysiga, Soomaaliya sidaad ogtihiinba cunadeedu adduunka aad uguma dhoofto. waxaan aad uga xumahay in kalluunkii waddanka iyagu soo saaro calamo magacyo kale ah lagu dhoofiyo oo adduunka lagu geeyo. taas waxaa keentay shaki dunidu ay ka qabto quality-ga aan cuntada aan soo saarno quality-geeda shaki ay ka qabta. saas daraaddeed waxaan rabnaa annaga iyo hay-addu inaan wada shaqayntanada sii xoojinno, partner garayno meel walba oo aan ka partner garayn karno, iskaashi shaqo aan yeelanno si loo hubiyo tayada kalluumaysiganaga, shaqaalahanaga tababar loo siiyo, si loo hubiyo marka in waxa adduunka aadaya ee dhoofayo sharciyadii adduunka looga baahnaa si looga helo. dadaal waa jiraa ilaa heer federaal ah oo waxaa jirto hay-ad Somali Competent Authority la hayo oo wasaarado badan iyo hay-ado badan isu keenaysa oo si loo horumarin lahaa tayada kalluumaysiga. marka hay-addaas hay-ad la mid ahna hadduu alla idmo stateku mashruuc aan mar dhow bilaabi doonaan ku samayn doonaa. waxaana tixgelinaynaa hadduu alla idmo oo hay-adaha nala shaqeynayo oo ay kow ay ka tahay hay-adda ama adeegga tayadhowrka Jubbaland. waxaan rajaynayaa marka Jubbaland waa state khayraad badan leh oo ilaahay ku manaystay oo haddana meel geographically meel aad u muhiima ku yaala. waxaan daris la nahay 2 dal
Kenya oo laba meel xuduud bad iyo xuduud berri aan leenahay iyo Ethiopia oo xuduud dheero iyadana berri aan leenahay state-kanagu marka wuxuu u haystaa fursad cuntadiisu inuu dalalkaas dariska iyo caalamkaba u dhoofiyo waad ogtihiin oo Ethiopia waa wadan aan bad lahayn oo landlocked ah haddii marka kalluunka iyaga si fiican loo tayeeyo waxaa fududaanaysa in dalalka dariska ah suuq fiican looga helo uuna helo standardkii caalamka uga baahnaa hay-adan insha Allah wax badan bay sidaan rajeynaya soo qabatay haddana waxaan u rajeynayaa inay shaqadooda halkaas ka sii wadaan agaasime xarumo kalena waad leedihiin xarumihiina kale iyo kuwa dekeda ku yaal iyo haddii shaqaalaha airportka idiin joogaya si dhow baynu hadduu alla idmo wada shaqayn doonaa wixii hadda ka dambeeya innagana waan kaaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta aad xarunta dhex nagu soo dhaweysay Cabdiqaadir Axmed Cali